dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay tallaabo muhiim ah hore u qaaday sidii loogu soo wareejin lahaa maamulka hawada kadib markii maanta dalka la keenay raadaar cusub oo qayb ka noqon doona maamulka iyo gacan ku haynta hawada dalka oo in ka badan 20 sano laga maamulayay dalka Kenya. Dowladdu waxay sheegtay inay bilowday dhismaha qalabkan sida uu sheegay wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. khadka telefoonka ee Muqdisho haddaba waxa ku jira wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, maxay dowladdu qalabkan ka sheegtay? waa mahadsan tahay. munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Muqdisho oo ka qayb galay wasiirka gaadiidka iyo duulista, maareeyaha hay'adda saadaasha hawada iyo agaasimayaal iyo xubno ka tirsan hay-adahan arrinta gacanta ku haya ayaa lagu sheegay in la bilaabayo dhigista iyo dhisida qalab casri ah oo laga maamulayo hawada Soomaaliya, kaasi oo ah qalab 9 bilood lasoo dhaafay yaalay gudaha garoonka Muqdisho, laakiin arrimo farsamo awgeed waxaa dhimayeen. qalabkan oo dowladda Soomaaliya soo iibsatay ayaa ah qalab lagula soconayo maamulka iyo hawada Soomaaliya, wuxuuna wasiir Salaad Omar uu sheegay in ujeedka ugu weyn uu yahay ama hordhac ay u tahay sidii hawada Soomaaliya ay ula soo wareegi lahayd dowladda Soomaaliya. waxaa dhawaan la dhamaystiray dhisma xaruntii ay ku shaqayn lahayd, waxaana sidoo kale maanta bilaabatay in qalabkaasi halkaas yaalay lagu howl bilaabo ama dhismihiisii la bilaabo, taasoo qayb weyn ka ah qorshe muddo dheer socday oo dowladda Soomaaliya ku dooneysay sidii ula soo wareegi lahayd maamulka hawada Soomaaliya oo 20 sano soo dhaafay laga maamulayay dalka Kenya. Cabdulqaadir, wax waqti ama u qabteen madaxdu xilliga la filayo in Soomaaliya ay mar kale hawadeeda maamulka la wareegto? wax waqti wasiirku muusan sheegin. wuxuu ka xusay in qalabkan uu yahay mid kamid a tillaabooyinka ugu muhiimsanaa ama ugu waaweyn ay ahayd in dowladda Soomaaliya ay xaqiijiso ama ay hesho. qalabka waxaa lagu sheegay inuu yahay qalab casri ah oo dowladahan Afrika inta badan aysan weli soo gaarin ama aysan isticmaalin. waa qalab lagula soconayo hawada iyo maamulka diyaaradaha, waxaana qalabkaas marka la dhamaystiro oo uu ka hirgalo garoonka Muqdisho dowladda Soomaaliya bilaabi doontaa buu yiri inay la soo wareegto hanaanka maamulka iyo hawada, isla markaana shaqaalaha fadhiya magaalada Nairobi iyagu ku howlan hagista iyo la socodka diyaaradaha hawada Soomaaliya isticmaala inay ka howlgeli doonaan magaalada Muqdisho, garoonka Muqdisho inay ka howlgeli doonaan. wuxuu xusay in dhismaha qalabkan hadda laga hirgelinayo muddo uu socday laguna guuleystay ugu dambeyntii in la dhamaystiro, haddana la rakibayo qalabkan oo shirkad dalka Talyaaniga laga leeyahay laga soo iibiyo, isla markaana gacanta ku haysa dhismihiisa. wuxuu xusay qalabku inuusan muddo dheer qaadanin. arrinta la xiriirta soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliyana xukuumado kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ay soo martay, isla markaana dowladdu ay ahmiyad weyn siin doonto ayuu ku sheegay wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar munaasabad kooban uu ka hadlay gudaha garoonka Muqdisho. dhinaca kale, Cabdulqaadir, waxaa magaalada Muqdisho ka socda maalintii labaad shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. maxaad arrintaasi nooga sheegi kartaa? Muqdisho waxaa ka socda shir laga hadlayo amniga, waxaana madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulada. waxaa shir gudoominaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirkan waa guddi loogu magacdaray guddiga amniga qaranka, waxaana hadda ku biiray maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo waxaa uga qayb galaya gudoomiyaha gobolka Saabir Cabdi Maxamed. waxaa looga hadlaya ugu waaweyn waxay la xiriirtaa arrinta amniga. qaar kamid a madaxweyneyaasha maamulada oo shirka ka qaybgalayo aan telefoonka kula hadlay waxay ii sheegeen in shirka maanta uu soo idlaar ahaa, laakiin ay jiraan arrimo yar oo harsan oo weli laga wada hadlayo. waxa ugu weyn hadda la dul taagan yahana waxa ay ii sheegeen inay tahay arrinta la xiriirta isku dhafka ciidamo maamulada guud ahaan iyo say wada howlgeli lahaayeen. marka qodobkaas oo marka shirka kiikan ka horeeyana looga hadlay suuragelinta ciidamo in la sameeyo min 3 kun baa marka lasoo hadal qaaday. waxaana hadda muuqata in arrinta la xiriirta hirgelinta ciidamo isku dhaf ah oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamuladu qaabka ay u howlgelayaan in farsamo ahaan la dul taagan yahay, sida uu ii sheegay mid kamid a madaxweyneyaasha aan kula hadlay telefoonka. wuxuuna xusay suuragalnimada in warmuteer lasoo saaro, laakiin weli arrintaasi aan la isku garan. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toos ah ugu jira halkaad nagala